nin askari oo meel ilaaliya ah maandowad aan ayadoo aad kulushahay oo aad u kulushahay ayuu nabigayga iyo ilaahayga intuu caayay ayuu igu yiri pastor iyo xabadlihii ka bax meesha waxaan iska casilay afayeenkii darbatiifta ee Hargeysa aan uga ahaa ayaan iska casilay maadaama aan xaalada arkay cimilo badan badda casoo xidhantay daaroodoo dhan hadday reer Puntland noqoto hadday reer Kismaayo noqoto hadday reer Baydhabo noqoto daaroodoo dhan waan hambalyeynaya ninka raggii xabag waa cabba khamru waa cabba adduweynaha imika داوديل واشر مركب عمر فريق تيجي نقدر داورسان داوديل صار أركيسين بقى معلومة شغل كل هذا حصل بحسي عبشوا بس المونديلا أو أعتقد بتجي في سماء لأنه كم بتجي تورد دوسة جيسة قارن ما يعرف داريسة مونديلا سودو قفل كان عاصمة كوسو مغني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب روح السلام يا مركب إلهي بمحله marka xigta waxaan salaamayaa ummadda reer Soomaaliland iyo dhamaan ummadda Soomaaliyeed ba amsina wa amsi mulku lillahi walhamdulillah la sharika lah walakal hamd walakal shukru ya rabbil alamin subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ida nafsi wa sinata arshi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk waxa weeyaan maayirka ayaanu 2 sano ka hor Abdiraxmaan Dheere maalintuu dhintay Allah ya raxmaan raaximiin hodan Abdiraxmaan aabaheed ayaa dhintay ma 2 sano ka hor markaasaan boorama tagay waa la iga hor aasay Allah ya raxmaan raaximiin Abdiraxmaan Dheere oo daaski kamaan gaadhin dabatana xilli dambaan galay boorama hotel ayaan ku degay hotelkii markaan ku degay waxaan sameeyay inaan ku nasto oo tacsida aan ka gaadho oo reerkii aan soo salaamo way soo tagal weeday shartii galabnimo ayuu ila soo hadlay Cabdikariin Axmed Mooge maayirka duqa magaalada caasimadda Hargeysa wuxuu igu yiri walaal State House-ka daamigan jira ayaan rarayaa waxaan ku dhaxraacinayaa buu yiri dadka halka degan ayaan ku dhaxraacinayaa baloor baan kaaga baabinayaa arrintaas waxay ii noqotay arrin farxadeed oo niyadeyda aan aad uga farxay alxamdulillah markaan farxay sheekadii igu yiri oo ila soo hadlay farxadaydu waan iska koobi kari waayay dabatana waxaan ku yiri xasaanallahu khayran ilaahay miisaanka xasanaadka rabbi aakhiro ha kugu daro maadaama oo anigoo agoona anigoo rajaa dhibaatoonayay anigoo murugo iyo tacadiyo badan iyo duruufo badan igu dhaceen caasimadii Hargeysana ku nool Somalilander ana ayaan gartay farxadaas inaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan la wadaago maalinta 2 sanadood ka bacdi dib ila muu soo hadal shalay baan isku dayay inaan la hadlo telefoonka waa iga qaban waayay waxaan weelkan baan imika ku shaqaystaa muruqmaal baan noqday halkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala 4 qof oo reer Minneapolis marka laga yimaado wicitaanka maarka wacsi ma uu taxafiiskiisu hawshii aad ku balanteen mooshat walaal horta xafiiska iyo nidaamkan xafiiska lagu sheegayo procedure-keega ama nidaamka sida uu kala socdo ayay aad u kala arag waayo because markaad tagto mobilka laga dhigayaa iyo cidaad u socoto iyo halkaad u socoto iyo halkaad u socoto listen marka waxa weeyaan maadaama oo procedure-keegu adag yahay dawladda hoose oo maayirkii hore ee duqay hore ee magaalada waa loo geli jiray laakiin systemka waxba laga bedelay marka waxa weeyaan mobilkaaga laga dhigayaa cidaad u socotana waa lagu sheegayaa marka waxa weeyaan aniga iyo maayirkii waa sarkii xogaayina waan sarkii weyn saasay noqotay marka inaan suweyno 2 sano imika waan suweyno xabad yaroo dhibaato oo caloosha moorta bilaadaren loo waaya aragnimada iyo baadariisa nolosha aan garanay ayuun baa tiraada xabag leh ummadda reer Soomaaliland oo dhan waa dad fiican waa dad wanaagsan waxayna ila jecel yihiin inaan shaqaysto oo aan xamaasho oo aan noqdo nin damuruqiisa maalanayo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunka kala la hormaraya dadka kala la mid ah dawladda hoosena waxa weeyaan cashuurta waa loo hogaansamayahay oo muwaadin reer Soomaaliland calankan waa duriyad waxa weeyaan wadaniyadu waa shay qaali ah anigu waxaan u sitaa calankan maaha ana halkan ku dhashay calankan waa waxa weeyaan waa calan qaali ah waxa weeyaan wadaniyaduna waa shay qaali ah midmid baa igu yiraahdo xabag leh
انت رير سومالي لان قبي قوغودن ودد آدو وناكسن ولبا ددك عقلية له واوين انتو ذا بدن آدو وناكسين marka wax dhibaato oo aan kala kulmo habeeraatay mid jirto marka maayirku horta ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilaahay ha barakeeyo Somaliland oo cusub oo qurux badan oo wadooyinkeegi oo aad u kala qurux badan ayuu sameeyay fikirkaana isaga dhaliyay maalintii la dooranayay anigu ayaa ugu riday Cabdikariim iyo Barkhaba maayirku nin qabyaaladeysta ama wadaniyada ayaa ku dheehan wadaniyada Somaliland darka ku dheehan waxaanu jecel yahay inuu Somaliland muraayad ka dhigo madaxweynena uu qalma anigoo ilaahay subxaanahu wa ta'ala qulubteeda ilaahay daalacanayo istusnimo iga ma aha iyo inaan dadka warbaahinta aan u marinayo wuxuu qabtay waxa aanu qabanna uu soo wadaa oo samir baasartiisa hele baa leeyahay ana taydan ilaahay subxaanahu wa ta'ala de samirkiisa sadkiisa waan gaadi doonaa insha Allah bilmillahi kariim وياي مدلا نول أدنى كسب عند الجزيرة أو سوق لا وهنا سينا من جريرة بقى فالجناح سو من هايستا جناح سو يكفر والله الجناح سجن وحي فري أفرغف أو تراجلا أمريكا شوجا أو هم من يابليسا أو دارودا أيا يفري دارودا دن هذا يرهب تلان نقطة هذا يرهب إسماعيل نقطة هذا يرهب بيدبان نقطة دارودا دوان هم بليانيا waayo ninka kuula qabta garab ku siiya waa ninku jecel horumarkaaga jecel ninka ku hiiliya ee naftaada iyo maalkaaga ka hiiliya noqda inaad noqoto nin soo baxa waa ninku jecel afar qof oo taraagla oo Mareykan oo reer Minneapolis oo daarooda ayaa gartay inay alaabtan ii buuxiyaan waliba waxay ii hayaan $600 15 ka dambana way soo diri doonaan فرناع ودرسيدا daaroodo dhan waxaan u direeyaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxa weeyaan wadku halkiisa dib haday igu dhacdo ummadda Soomaaliyeed way wala arkaysaa kaaryoonka waan ku xamaashaa nin askari oo meel ilaaliya ah maandowad aan ayadoo aad kulushahay oo aad u kulushahay ayuu nabigayga iyo ilaahayga intuu caayay ayuu igu yiri pastor iyo xabadlihi ka bax meesha nin military oo xidig iyo gaashaan wata ayaa arkay wuxuu waa miskiin oo waa adoon ilaahay abuurtay maxaad weydiinaysaa ma iskaga tagtid miskiinka yar maxaad ugu diganaysaa dawladda hoose cashuurteeda waan ogolahay waana sharciina la ogolaado wadankana la maal gashado laakiinse wadaniyada in la ogaado sheeqaaliya wadaniyada iyo cashuurtu waa kala gaar ninka habla asaga diinta ducay maxaa sileeda uu kugu maagay ama uu ku caay macnihi wuxuu igu yasay ninka ragga xabag waa caba khamru waa caba adweynaha imika jalmalka ninka la yiraahdo higalad ninkii la oran jiray iyo madaxweynaha Kenya imika baalash luha xabag luha xashiishad luha wax walba waa soo maray maanta waa madaxweynaha Kenya waxaan jeedaa higalad waa barka Obama dowladda caalamka ka tirsan oo reer galbeedka ayo homeless ahaba jiray nin waxaan aqaanaa isaguna homeless noqdo imika Mareykanka ka taajira oo waliba Afrika u dhashay sama fahmin dadkeenu ma fahansana sistamkan iyo waaya aragnimada iyo baadariisa ka nolosha ee 24ka ma fahansana ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajeynayaa sanadku waxa weeyaan waa 24 bishuna maanta waa 7 maayirka caasimada duqa magaalada Hargeysa ilaahay ha barakeeyo horta awlaadana Allah ha barakeeyo qof walbana ilaahay qulubtiina dhexdooda Allah ku abuuro qofka ku jecel waa qofku jecel hankaaga iyo noloshaada doonaya inaad anfac yeelato oo soo baxdo maayirka waxaan ka codsanayaa cashuurta waan hogaansamo waan bixinayaa Somaliland baan la mid ahay dadka kale ee shaqaystaan la mid ahay maalin walba ceeda ayaan wareegaa waxaan idhi Cabdikariim dal xoreeyo duul waliba kugu baraad hadduu Ingiriis fadhiyo habeenka maan casheeyeen beerka ay qarqadhi lahaa mustakamaan hi wallahayn Cabdikariim oo hambal iyo salaam baan hadiyad kaaga dhigay Cabdikariim oo dhici maysid waliga dhici maysid abidka taariikhdu iyada isqortee waxaad qabatay taariikhda ayaa ku qari doonta naf baan ahay dheelido dantaal iyo ciil qabto intuu dhaawacay waqtigu dirbaaxada waayihiyo duruufuhu dhala rogeen qofkii damir lumba dhigaysan kara duruufuhu dhala rogeen dallaan aan waalid iyo walaal dhashiya lahayn
dabtii ehel baan ahoo wadada dhinaceega iyo ku koray derbiga intaa waan dhiiradaa dambaalaan soo diraa haddana lama dhaadaye kuwaan u dhawaaqayow miyaydaan dhaga lahayn intaan isku dhiignihiyo dhammaan soomaaliyey dhegaysta warkayga oo arkoo dhaayaha u fura dhibaatada aan ku jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala mayrka allaha barakeeyo ummadda somalilan waa ummad fiican waa dad wanaagsan waa dad liban leh aad bay ii soo dhoweeyaan suuqa inay ka shaqaysanayaan oo dhan way igu soo dhoweeyaan hooyada bakhaarku way ii xaraysay ima yasin afayeenkii darbitiiftaan ahaan jirayna maanta iscasil waya Mandela intaana iscasilin kor waxa jirta xan sheegaysa in xilkan afeenka darbitiifka aad ku geysatay musuq badan gaar ahaan darbitiifta aad ka musuqday dhar loo soo dhibay weliba soo dhibtay wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska ma jirto taas horta walaal arrimaha bulshada iyo shaqagelinta Somaliland aniga waxaan qabtay ummadda cadaynaysa ummaddaana markhaati waxaan qabtay waxa weeyaan intii aan afayeenka ahaa ilaa iyo hindagaani ilaa iyo Mustafa Badane wala shaqayn baa naga dhaxaysay laakiinse waxaan anigu wasiirka ka soo qaatay oo aan jeebadeeda ku cunimay jirin anigu dadka Soomaaliyeed ummadda Nabi Maxamed ee dibadaha ku nool ayaan u bari jiray dabatana u toorasha iyo maalimaha dhaxamaha iyo kulaylaha ayaan soo gaarsiin jiray marka waxa leedahay ma jirto wax musuq oo geystay ay soo dhigtay wasaaradda shaqagelinta darbitiifta wasaaradda shaqagelintu qoondada miisaaniyadda 1 milyan baa ugu qoondaysan 1 milyan Xuseen Mandela inuu qaatay yahay aniguna kiisa intii aan afayeenka 19 sanaba maan qaadan ilaa iyo dawladda cigaal waan taagnaa daahir yaalan taagnaa siirayaan taagnaa Allah hadaaye amrigiisana Allah dheereeye madaxweyne biixiyo maanta hayana waan taaganahay waxa weeyaan nin soo taagay oo bilaal leh oo waqtigii waayuu gabeeno hadda bilaalaystay baan ahay gaboobay madfahankay oo rafaaday maadaama rafaad badan iyo dhibaato badan igu soo dhacdo adoon aan ahay oo raja ahay waxaan ka codsanayaa ganacsadayaasha Somaliland damiirkiina igu naxariisto oo ii kaca maayirkana ilaahay awlaadda ha u barakeeyo ubadka Allah ha u barakeeyo Somaliland qurux badanna waa dhisi doona insha Allah waxaan iska xasilay afayeenkii darbitiifta ee Hargeysa aan uga ahaa ayaan iska xasilay maadaama aan xaalada arkay cimilo badan badda cas oo xidhantay badda cas waxa sababay badda cas baa xidhantay xutiyintu maalin dhaweed waxa weerareen internetkii 4 bay tareen waad ogtahay arrinta dagaalka saddexaad ee adduunku waa arrin siyaasadeed la isku dilayo waa tuquraati ayaa la isku dilayaa marka iyadoo tuquraati la isku dilayo la isku dagaalayo waxaan leeyahay arrintaas darteed baan isku xasilay maadaama uu akhirsaban lagu jiro afayeenka darbitiiftu waa isxasilay ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta laga bilaabo mayhi afayeenkii darbitiifta ee homelesska u caawin jiray mayhi aniga ha la soo caawiyo aniga ha la gaaro haddaan maanta oo dhimashada waan ogolahay mawdka waan ogolahay malaa'igtu garbada ay saaran tahay saacadayda baan gaadhayaa inaan dhiman doono laakiin hadday dib igu dhacdo Soomaali iyo ummadda Nabi Maxamed oo dhan inay ogaataan rabaa waanan iscasilay